Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada warka idaacadda codka dowladda hoose ee maamulka gobolka Banaadir waxaana ugu waaweyn duqa Muqdisho oo gudoomiyay kulan looga hadlayay maalgashiga caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda oo magaalada New York lagu gudoonsiiyay abaalmarin caalami ah. Degmada Waaberi oo soo gudubtay wareegga sideed dhamaadka tartanka degmooyinka ee ka socda garoonka Injineer Yariso ee Muqdisho. Ciidamada maamulka Puntland oo howlgal ka sameeyay buuraha caalamada ee gobolka Bari iyo maxkamadda sare ee dalka Ingiriiska oo ka hortimid go'aankii uu qaatay ra'iisul wasaaraha waddankaasi Boris Johnson. Kuwaas waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii warkeena ugu waaweynaa u diyaar garoobaasi iyo faahfaahsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa abaalmarin heer caalami ah lagu gudoonsiiyay magaalada New York ee caasimadda waddankaasi Ingiriiska. Abaalmarintan oo la yiraahdo hogaaminta suuban ayaa waxaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya uu la gudoomay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha waddankaasi la taliya Siyaasi Afwerki waxaana lagu gudoonsiiyay saddexdan mudane abaalmarintan doorkii wanaagsanaa iyo isdhexgalka ay ka qaateen bariga Afrika gaar ahaan wadamada Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea iyo nabadeyntii halkaasi ka dhacday. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si gaar ah loogu amaanay doorkii wanaagsanaa ee uu ka qaatay dhexdhexaadinta dalalka Itoobiya iyo sidoo kale Eritrea waxaana sidoo kale hogaamiyaasha halkaasi ku sugan ay u garteen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yahay nabadoon dhinaca nabadda ku xil dheer. Abaalmarintan ayaa waxaa sanad walba la siiyaa hogaamiyaasha caalamiga ah waxaana sanadkan 2019 qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha waddanka Eritrea. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga qaybgalaya waddanka Mareykanka shirka guud ee golaha loo dhanyahay ee Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa. Duqa Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa magaalada Muqdisho wuxuu ku qaabilay wafdi heer caalami ah oo ka socda ganacsatada waddanka Turkiga qaarkood. Kulankan ayaa waxa uu ahaa kulan looga hadlayay maalgashiga caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaana goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda Ibrahim Dheere iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. Kulanka ayay la qaateen madaxda ka tirsan maamulka gobolka, dalada warshadaha iyo ganacsatada oo la yiraahdo Tomside oo ay ku midoobeen ganacsato reer Turkiga ah. Waxaana sidoo kale ganacsatada reer Turkiga ay ballan qaadeen in 17 degmo ee gobolkan Banaadir ay ka fulin doonaan horumarro mashaariica isla markaana dowladda hoose ee Xamar ay kala qayb qaadan doonaan bilicda caasimadda. Duqa caasimadda Mudane Cumar Maxamuud Maxamed ayaa soo dhaweeyay garab istaagga ganacsatadan dalada warshadaha iyo ganacsatada ee Tomside ay u muujiyeen dowladda hoose ee Xamar. Degmada Waaberi ayaa u soo gudubtay wareegga sideed dhamaadka ee tartanka degmooyinka ee ka socda garoonka kubadda cagta ee Injineer Yariso ex-Konis ee magaalada Muqdisho. Degmada Waaberi oo tartankan degmooyinka difaacanaysa ayaa 2-1 waxay uga adkaatay degmada Xamarweyne waxaana u soo baxday tartanka degmooyinka ee 17 degmo ee gobolkan Banaadir oo si habsami looga socda magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka Injineer Yariso ex-Banaadir Stadium. Ciidamada Puntland ayaa lagu soo waramayaa in howlgallo ay ka sameeyeen buuraha caalamada ee gobolka Bari ee maamulka Puntland. Howlgalkaas ayaa la sheegay in lagu soo qabtay tiro ka tirsan dagaalamayaasha kooxaha Daesh iyo Al-Shabaab. Waxaa la sheegay in howlgalkan uu ahaa mid ay fuliyeen ciidanka sida gaarka u tababaran ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Ugu dambeyntiina maxkamadda sare ee dalka Ingiriiska ayaa waxa ay laashay go'aankii ra'iisul wasaaraha waddankaasi Ingiriiska Boris Johnson uu ku kala diray muddo dhowr usbuuc baarlamaanka waddankaasi Britain. Maxkamadda sare ee dalka ayaa waxa ay sheegtay in go'aankaasi uu ahaa mid qaldan. Waxay tilmaantay in baarlamaanka waddankaasi Ingiriiska ay u taalo shaqo aad u adag maadaama 13 bisha soo socota laga sugayo go'aan inay ka qaataan in ay midowga Yurub ka baxdo Ingiriiska iyo inay ka mid ahaato. Boris Johnson ayaa arrintan waxay ku noqotay dhabar jab. Warkii oo aad kala socoteen channelka idaacadda codka dowladda hoose ee ciyaare waa naga intaas tan iyo kulan dambe nabadgelyo.